waxaan ahay arday sanadkan ah fasalka form 4 dhammaan form 4-da ilaahay waxa ugu baryayaa kuwa guuleysta inuu ilaahay ka dhigo form 4-da ilaahay hani gargaaro juhdi baan sugayo ma harsano mana hooyano akhrisaan ku jirnaa ilaahay hani gargaar garabkiina ala istaago handuu jooga wasiirka kuwa qoray buugaagta waxaan weydiinaynaa waxaan ahay arday ku dhalatay Muqdisho kuna barbaartay Muqdisho waligood aanin gobol waalidkeenana wuxuu ku dhashay Muqdisho wuxuu ku barbaaray Muqdisho aniga hadda inta taagan hooyaday waxay ka soo baxday iskuul dhagaxtuur waligeed gobol ma aanin meesha igu fogeed aad waxa waaye x sidee ku ogaan karaa eray looga hadlo gobolada waxa halkan ku qoran erayo kala duwan aan ka soo qoray xalay buuga Soomaaliga maalintii ugu horeysay akhri buuga waxay ahayd marka iskuulka waxa la furay 15 Agoosto 15 Agoosto buugaagtan waxa gatay muddo bil ka bacdi 30 biri buugaagta ma arkin waxa arkay erayo kala duwan kaal iyo caal iyo caar iyo caban iyo erayadaas aan hadda ma ogaan kari micno uu taagan yahay buugan wuxuu sheegayaa in aniga soo raadiyo waana la yaabay hooyaday handaaweediin iyada ma taqaan waligeedna ma soo arkin buugan wuxuu ii amray in aan qoro wasiirka waxa weydiinaya waxbarashada Allah xafidee buugeena juqraafiga waxa ku qoran xeebta Soomaaliya inay tahay dhirirkeeda 2800 wax saas galaaska fasalka afraadna waxa ku soo bartay inuu ahay 3333 ayaa ku soo bartay hadana imtixaanka qaranka ku jiro hadii aan arko oo liidaho sheeg xeebta Soomaaliya waa imisa ma fanfaarka waxa ku bartaa sheega mise waxaan sheegaa wixii aan ku bartay fasalkii saddexaad waxa kale oo caqabad aan ahne oo aan ka codsanayna wasiirka kolay anaga waa baxnay fanfaarada naga dambeeyana in loo sameeyo luuqadeena waa luuqad Soomaali waxa wax ku baranana waa af Soomaali waxa ku hadalna waa Soomaali meesha joognana waa Soomaali hadii noola keenay English waxa qaadanaa 12 maado 12 maado laba maado waa Carabi hal maado waa Soomaali inta kale waa English sidee ku baasi karnaa marka luuqadan u dhaleen afaadeen waa aflagaade ka keenta Soomaali ku dhahdeen mudane wasiir sidee ku baranaa af qalaad anagoo joogna dalkeena aan u bixin dibadda ardaya dhacaya asigoo iskuulka ka galay kaalinta koowaad misna markuu galo imtixaanka waxa leeyahay uu dhacay sidii ku dhacay iskuulka kaalin uu ka galayay waa su'aal حتى هندي نقول صدري لهاي مادوين دينية سيدا تفسير أحاديث رسولك وأكو قنع لهن ما قادنا هل مادو أو حقادنا أو تربية وحكلوا عقبات وين تاي وقت إنه يري هاي وإسكول كنا أنا فرمي شان إتمنى بيشة أغسطس وحنا فريه هاي مدة بقول لحنا لو معلومات وحنا هرينا ومدة لحنا يسدح معلومات هذه الإسكول دروا لو بقول شان إلى بعض معلومات مكو بران كرنا anagoo arday adan manhajki oo si cusub yaa oo horena arday u soo barin hadii dhihi karna xitaa noo faa'iideeyo waxay ahaaleed waxa u daran maadooyinka calculation-ka oo u baahan scientific-da sida chemistry-ga xisaabta iyo physics-ka waa 12 chapter waxa laga yaabaa iskuulku uu fog oo wax badan dadaalay inuu marayo chapter 7 hadaa mareys waxa ku haray waa 4 chapter ma ku dhameyn kartaa 63 maalmood oo jimciga khamiis ay ku jiraan anaga iskuulkeena maamuleena Allah u gargaaray wuxuu noo sameeyay 7 maalin waa imaanaa laakiin waa dhibsanaa dhibkeena dheefteeda maalin la heleena maamulkeena sina aad ugu mahad celinaya waxa codsan lahaa in ardayda naga dambeys kolay anaga waa tagnaa ardayda naga dambeys in loogu soo diro baadooyin diinta ku saabsan si aan u hormarno maadiga midib ku qabanay diinta bidix ku qabanay sidee loo guuleystaa sidee kaalin loo istaagaa aniga hadda hortaagan waxa rajaynayaa inuu ilaahay cimri iyo nabad igu gaarsiiyo caafimaad 2025 inaan noqdo wasiirka waxbarashada ama wasiirka caafimaadka sidaas nabadgeliyo